night when I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these badan waa isweynay asxaabta ku xidhan jaraal ku soo dhawaado waa mar kale iyo muuqaal kale hadda wixii ka dambeeya waxaan u soo laabanay si active ah insha Allah waxaan doonayaa maanta inaan kula wadaago muuqaal cajiib ah muuqaalkaas oo ahaan doona sidee baan u taxliilin doonaa suuqan oo biritole halkee baan suuqan u aadi doonaa qolada buy ugu jirto ayaan la mid noqon doonaa mase qolada sell ugu jirto go'aanka biritole haddii uu ilaahay naftan uu gaarsiiyo waxaa lahaan doonaa taxliilinta aan caawa samayn doono sida wada ogsoonahay ba haddii ilaahay naftan uu gaarsiiyo muuqaalkan waxaan soo dhigi doonaa insha Allah biritolena waxay noqon doontaa 26ka bisha toddobaad ay noqon doontaa waana maalin Arbaca ah halkee baan suuqa u geli doonaa asxaabay haddii aad ku cusub tahay janaalka la garay sidoo kale intooda muuqaalkan si share garay ina keena oo ina geeya dhankaayo shaashada up in the middle of the night when I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on liin dheer kadib falaqeen dheer kadib waxaan ogaanay in suuqa aan ka raadin doono hadduu ilaa ka raan noqdo JBP USD iyo Euro USD dhanka iyo Uptrend sidoo kale intood haddii aad ogsoon tahay USD card haddii aad ka trade garaysidne waxaad u trade garin doontaa dhanka iyo down ayaad u trade garin doontaa insha Allah marka waxaan ku rajeynayaa horumar iyo baraare hadaba haddii ay tahay markii ku guurisay soo boqoto janaalka la garay sidoo kale intood muuqaalkan si share garay waxaan ku dhahay Euro USD waxaan u raadin doonaa dhanka iyo buy trend buy ha noqoto short term haddii aad tahay scalper ama qof wax yar suuqan ku jira waxaad u raadin doontaa dhanka iyo Uptrend fursad u raadi insha Allah JBP USD iyo Euro USD labadaas waxa u raadaysaa dhanka iyo Uptrend sidoo kale intoodna haddii aad trade garaysid USD card beerka lagu magacaabane waxa u raadin doontaa dhanka iyo downtrend ama dhanka iyo sell waxaan ku rajeynayaa horumar iyo baraare peace